runtii haddaan wax yar ka xuso mushaar bixinta anigu hadda wasiirka maaliyadda markaan arkay hal su'aal baan weydiiyey waxaan ciidamadu wiigan waxa laga hadlayaa ciidamadu mushaar ma helin meel bay ka soo baxeen arrinta maxaa ka jiraan waana arrin shacabka Soomaaliyeed is weydiinayo markay madaxda qaranka oo dhan baa tiraahda mushaarka waa bixinaa ciidamada le lama siin anigu intaanan wasiirka qowlkiisa qaadin waxaan aaminsanaa arrintaas inaanay waxba ka jirin ayaan aaminsanaa sababtaan u aaminsanahay waxaan xasuustaa xukuumado badan baan ku soo jiray markasta oo islaano ciidanka tirakooba dagaal baa nala gelin jiray dagaal wasiirada intaas soo jeer baa naloo qaybiyay xerooyinka ciidamada anagoo golaha wasiirada ka tirsan waxa ay ciidanka khalad baa ku jira soo tirakooba markaasa dagaal shabaabka iyo niman kale aanu ishayno oo aan lala dagaalamayn baa dagaal la gelin jirayba si aan tirakoobkaasi u dhicin anigu waxaan leeyahay dawladdu waxay waday inay ciidamada qaranka tirakoobto ayay waday waxaa la og yahay in dad ay jiraan tiraday doono ha noqdeen ha yaraadeen ha badnaadeen waa dawladda iyo wasaaradda maaliyadda gaashaandhiga ka jawaabi doona laakiin dad laba mushaar qaata inay jiraan baa golaha wasiiradu aad shaki weyn uga qabaa ama la huba ha yaraadeen haday doonaan waxaa la hubaa dad ciidaa ka badan oo hoteelada ka shaqeeya oo hay'adaha security-ga ee dharka labisa ka shaqeeya inay ciidamada qaranka tirsan yihiin oo laba mushaar qaataan anigu intaanan wasiirka u imaan waxaan lahaa kuwaasaa fawdada waday ogaada gacmaha meeshaan ku jira gacmo dawlad dumisaa ku jira gacmo lacag xaaraana qaadanayo inay sii qaataan doonayaa ku jira saraakiil baa ku jirta wasiirku wuxuu iiga jawaabay qof ciidana oo maray nidaamka loo sameeyay ciidamada oo mushaar la ma jiro and I believe that taasaan rumaysan haddaan anigu ka soo tirsanaa xukuumaddii cabdilaahi yuusuf cali geedi oo ay noo diideen inaan tirakoobno ciidamada dad oo dana gaara ku qaba haddaan ka soo tirsanaa dawladdii sheekh shariif iyo cumar cabdirashiid oo aan xasuusto aniga mariiniya halkaana laygu qoray inaan khatar ku galnay tirakoobka ciidanka oo dagaalna la ku riday haddaan ka soo tirsanaa dawladdii xasan sheekh sorry iyo cumar cabdirashiid oo noo suuroobi weyday ciidamadu aanu ognahay in dad khaladi ku jiraan dad hoteella ka shaqeeya ku jiraan in la tirakoobana loo diiday maanta dawladda nabad iyo nolol ma dib dambe uma waabanayso meel laga soo baxay systemka dawladda socda looma joojinayo baaris xoog lena waa lagu hayaa gacmaha dawlad dumiska ee ka dambeeya ciidamada inay propagandaan idaacadaha iyo meelaha qaarkood oo ka shaqeeya wiigan inay dawladda propagandaan madaxda qaranka khudbadahooda propagandaan waxa weeye sida wasiirku ii sheegay aniguna aaminsanahay qof nidaamka maaliyadda ee dalkan kaga baxayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo deyn afiska maanta joojin karaa ma jiro way laga waantooda waxaan ogahay in baaris adag ay ku socoto dadka riixaya ciidamada soo baxay la wareysan doono ciidamada cabanaya la wareysan doono idaacadaha iyo dadka social media boombooniya dadka lacagta siiyay la wareysan doono lacag bay qaateen sidaas ay ku boomboonayaan I believe that marka waa idinku amaanaya waxaan ku noqonayaa qodobkii ahaa qofka dawladdan u shaqeeya xuquuqdiisa inaad siisaan oo hubisaan ciidamada hadday jiraan kuwa weli systemku aanu gaadhsiisaan laakiin aydan ka noqonin bareesharka la samaynayaa uunu agtiina ka shaqayn ayaan idinku amaanaya intaa markaa halkaa kaga baxo